macallimkii macallimiinta ee Jurgen Klopp ayaa ciyaartoydiisa marsiiyay tijaabadii ugu cuslayd ee kulamada isku diyaarinta xilli ciyaareedka cusub waxaana uu ku soo galay shaxdiisii ugu miisaanka cuslayd ciyaar 5 gool iyo waxba ay ku riiqdeen RB Leipzig waxaana ka maqnaa kaliya goolhaye Alisson balse booskiisa waxa buuxiyay Adrian oo la hordhigay jiin difaaco ay jabsan waayeen weerarka Leipzig waxaana hogaaminayay Van Dijk iyo Ibrahima Kanuta sidaana waxa xur ku noqday balasha difaace Robertson iyo Arnold oo qayb libaxlana ka qaatay duulanadii weerar ee kooxda gobolka Marseille qadka dhaxana waxa ku kulmay saddexleydii sababta uu ahaa in Liverpool kaalinta labaad ay ka gasho ku guuleysiga horyaalnimada Yurub ee Keite Basma Thiago iyo Brazilianka aan jixin ee Fabinho sida ayaadna ku garan kartaa in Leipzig ay la dheeshay koox loo dhamaa dhinac kasta kaalinta weerarna waxa ka soo dhalaalay Mohamed Salah Firmino iyo Luis Diaz oo degdeg ku xaday qalbiyada mucaashaqiinta Liverpool intana loogama hirin kooxdii jihada ay ka qasnayd oo waxaba dunida isku baray dhawaangalka Liverpool ee Darwin Núñez oo biyo qabow ku shubay hadalhayntii noqonaysay inuu yahay saxiix ay ku hoobatay Liverpool waxaana ka yimid 4 gool ee baaqiga u ahaa duriyadii gobolka Marseille joogdheera Darwin ayaana dadyowga dunida tusay inuu yahayba goolaliye karkar ah oo diyaar u ah inuu shiisho difaacyada kooxo badan oo ka ciyaara qaarada Yurub iyo horyaalka Premier League Darwinkii la ciyaaray RB Leipzig waa midkii ay sugayeen taageerayaasha Liverpool waxaana ay u aqoonsadeen gees kastaba inuu noqon doono hogaamiyaha guud ee kooxda ka dhisan gagada caanka ah ee Anfield waad ku mahadsan tahay haddii aad daawanayso warbixinadan ilaa iyo dhamaadkooda waxaan ahay Maxamed Cabdirasaaq Tolman